dowladda Kenya ayaa 16 bishan u yeeratay danjiraheedii u fadhiyay Soomaaliya iyadoona sidoo kale safiirka Soomaaliya ee Kenya ku amartay in uu dalkeeda ka baxo waxayna talaabadaasi u sababaysay eedeyn ay Soomaaliya ugu jeedisay in ay beecinayso saliid ku jirta bad ay Kenya leedahay shacabka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha Dadaab oo dusha kala socda xaaladaha cakiran ee ka dhax aloosan labada dal ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay mowqifkooda ku aadan ka qaxooti ahaan sida ay u arkaan xiisadda siyaasadeed ee sii xumaanaysa ee ka dhaxaysa dalka ay martida u yihiin ee Kenya iyo Soomaaliya oo dalkooda ah aragtidayda aniga waxaan leeyahay Kenya iyo Soomaaliya Kenya ayaa khaldan ayadaa sheegatay biyihii iyo baddii Soomaaliya taas oo ay sabab u tahay dawlad la'aanta iyo awood la'aanta iyo waxa weeye mataqaanaa cid maanta ka ceshato aan ka jirin ayada kaliya ma ahayd caalamka oo dhan baa Soomaaliya soo wada dawaaciyay kuwa maraakiib bay keensadeen kalluunkii bay gurtaan kuwa khayraadkii bay u hunguroodeen kuwa hadii ilaahay ma reer bacayo yaa kula xajad way Kenya iyo Soomaaliya horta waa laba dawladood Afrikaana waa laba dawladood walaala waa laba dawladood daris ah hadda dawladaha markay saas kala daris u yihiin waxa iska jira waxyaalo badan oo ka dhaxeeyo sida xuduudida kamid ah marka isjiid waxyaalo noocaas uu iska dhici karaa laakiin arinta ayada aniga aad baan uga xumaanay runtii markaan maqalnay ku dhawaaqtaankii aan maqalnay Kenya waan ka xumaanay haddana Soomaaliya waxaan haddana sidoo kale falcelin inkaaran ama ka bixisaaban lahayn arin fiican oo si fiican aan ugu faraxnay oo diblomaasnimo ayaan Ilaahay waa ku runyahay arinta iyada ay mareen laba dawladood daris weeye Kenya iyo Soomaaliya laba dal oo xushmad iyo wanaag kala mudan weeye laba dal oo wanaag weligood ka dhaxeeyay weeye xumaan aan dhex marin waxaanu leeyahay horta marka koowaad waa inay wanaagii iyo xushmadii iyo sharaftii ay mataqaanaa awal soo hayeen soo celiyaan midda labaad Soomaaliya waa kuftay hadday kuftayna kufidii waa ka soo noqotay Soomaaliya dhulka ay leedahay weeye waxa ay mataqaanaa ama gadatay ama ganacsatay ama baaratay dhulka ay leedahayna cid ku farangelin ka dhigay cid waxayn ka dhaamidnaba jirin cidna ka ay tuugi mayso cidna taa ka dhulkeeda kamida oo aan mataqaanaa baahalka leeyahay ay ka yaboosanayso ama u dhaafaysa ama u deynaysa ma jirto madaxda Soomaaliyeed waxaanu aad iyo aad ugu taariyeynaa sidii ay u hadleen iyo si ka si fiican inay u hadlaan qarannimada Soomaaliya iyo ciidda iyo bad haday iyo bir haday tahay ay u difaacaan runtii horta markii loo yaa qaldan dadna waxa u diyaartamayaan kheyraadkooda midna wuxuu u diyaartamaya kheyraadkiisa inuu qaato marka waxaan leeyahay Kenya ha isdejiso Soomaaliya siyaasadda hoos u dhigto si wada hadal mis kala wada dhameeyo anoo u xanaanin dalka Soomaaliya anoo u xanaanin dhanka Kenya oo siyaasad ahaan marka aan isku bardhigo waxaan aaminsanahay in Kenya ay qaldan tahay Soomaalina ay ku taagan tahay go'aankeeda maanta ma aha Soomaaliya in lagu amar taagleeyo ida ay xaq u leh macnaha shidaalka meesarta ay ka beecgeysan kartaa muranka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ee la xiriira xadka dhinaca biyaha ayaa ahaa mid in muddo ka dhax taagan labada dal walow maxkamadda caalamiga ah ee Hague ee kiiskan uu hor yaalo aysan weli go'aan rasmi ah ka gaarin Mustafa Maxamed Xuseen Mustafa Murtile Tabiya Cable TV xeryaha qaxootiga Dadaab gobolka Waqooyi Bari Kenya